بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalahayga kusoo dhawaada channelkeena halkaan naga taawanaysiin waa Yaaniita Aragsan TV. maanta maxaan sidaa ama maxaan ka hadli rabnaa kuley Yaaniita waxaad ugu barateen waxyaalo badan wax walbo oo macnaha socdo ama adduunka jiro inay soo gudbiso daawatiin walaalahay u xiran waxaa aad baa mahadsantihiin fadlan hataa nagu cusub tahay channelka subscribe noo saara hataa hore noola joogtana like iyo share ta naga baqaylin asxaabay maanta waxaan wadaa waxa baryahan social media aad looga hadalhayaa Sheekh Rusheeye iyo familkiisa horta waxa dadkaas Soomaaliyeed dad aad mashquul badan aanay taakadka la saartay dadka oo sixiraasan oo yeela soo sheekh asagaba ilaahay idinkiisa gacantiisa dad badan ku soo caafimaadeen oo ilaahay ku caafiyay sheekh waxa waa sheekh dadka ay quraan saara shanta Soomaali ayuu tagaa meel walba ee Soomaali ay joogto oo tagaa dadka xanuunsan sida ilka insiga jinniga ama xanuuno kale ha noqdaano ilaahay unbaa dadka caafiyo marka hadda nala dhageysta dhibaatada sheekaas loo geystay iyo caruurtiisa oo laga afduubtay laakiin hadda waxaa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahi talaadadii in ilmahayga shanta gabdhood ee dhalay in la afduubtay inay habeenkii oo dhan maqnaayeen in subaxii dambe la soo helay ayaa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahi waxaan marka u sheegi waayay acuudu billaahi samiic alcaliim min ashaydaani alrajiim bismi illaahi arraxmaani arraxiim afaman kaana muuminan kaman kaana faasiqan laa yastawuun ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaalaa noo qadaray inaan islaam ahaano ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda iskale intaa kadib walaalayaal in badan baan ka maqnaa saaxadda facebooka ama youtube-ka dadna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inaan dib ugu soo noqdo sabab jirta awgeed sababtoo ah waxaan islahaa wax walbo lagugu sameeyo waxba youtube-ka ha gelin facebookana ha soo dhigin marka waxaan qarsan waayey ayaa maaragtay igu kalifay inaan soo galo waxaa dhacday walaalayaal xaqiiqatan dagaal culus ayaa shayaadiinta kooda insiga iyo kooda jinnigaaba ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ii qadaray inaan la galo waana ka guulaysta xaqiiqatan sidaa awgeed walaalayaal waxaa jiray markaan shaqadan bilaabayay in la yidhaahdo ninkani waa saaxir ninkan wuxuu hayo qur-aan ma aha diinta maaragtay saasoo kale waxaa isla soo socota walaalayaal waxay soo gaartay in gurigayga xabad lala dhaco si loo laayo ilmo yaryaroon dhalay iyo anigaba haddana ilaahay waa u qadari waayey in maaragtay arrintoodii u suurto gasho sidaa awgeed walaalayaal waxaa dhacday waxaan deganahay saad ogtihiinba magaalada Hargeysa ilmo yaryar oo ugu weyn yahay 10 jir ayaa subaxii talaadada waxay ka yimaadeen shaadibiyada meel la yiraahdo oo ay maaragtay dhigtaan waa 5 caruura weeye waxaa ugu yar 3 jir baa ugu yar waxaana ugu weyn 10 jir baa ugu weyn sidaa awgeed mar allaaliya markay ka soo baxeen ayaa la waayey magaalada Hargeysa waa magaalo nabada weeye wixii markaa ka dhacana waxaa weeye waa wax maaragtay qadar ilaahaya sidaa awgeed ilmihii yareeraa ee maaragtay ilaahay ubadkaygu ka dhigay waxaa dhacday in markaa la waayo anigu markaa waxaan joogaa garawaan joogay hooyadii reerka ayaa waxay istiri shiiqii looma sheegi karo bal iska sug adugu duhurkii bay gaadhay haddana habeenkii bay gaadhay habeenkii bay soo wacday 4 saaco habeennimo xaaskayga koowaad weeye waa qofka aan isleeyahay noloshaada xaqiiqatan in badan ayay maaragtay la soo maaragtay wax badan ayaanu isla soo qaybsannay arrintii bay ii sheegtay waxay tidhi saasaa dhacday ilmahaana waa la waayey sidaa awgeed
isla markiiba qanaacan ku qaba ilaahigii shalayga siiyey inuu maantana maaragtay siduu doono yeelayo facaalun limaa yuriid ilaahay weeye markiiba ilaahay baan baryay waxaan ilaahay ow rabbi odaanna siiyey owlaadaas haddana waxay ku jiraan gacano cadow ilaah odaan noo soo saari kara saa awgeed walaalayaal xukuumadda somalilan aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sidii sharafta lahayd ay magaalada hargeysa oo dhan ugu istaagtay owlaaddeydii raadintooda waxaan khaasatan u mahadnaqayaa ninka madaxweynaha ka ah maaragtay xukuumaddaas khayrka badan ee maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa gacanta u soo geliyay owlaaddii la afduubay ayaan maaragtay u mahadnaqayaa waa mudane muuse biixi cabdi waxaan ku leeyahay jiroo joog khayr badanna allaha ku siiyo khaasatan walaalayaal haddana waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda somalilan booliiskeeda oo si qaasa isaga xil saaray ilmaha raadintoodii ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ajar aan dhammaanaynin allaha siiyo ninka mas-uulka ka ah taliyaha booliiska iyo dhammaan inta ka hoosaysaba waxaan u dirayaa mahad ballaaran ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khayr badan haydin siiyo siday sharafta leh aad iigu gurmadeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinkugu gurmado intaa kadib walaalayaal ilmihii waxaa dhacday waxaa afduubay waa xasad weeye cid kale oon u saarinaya ma jirto waxaa weeye waa dad awoodi waayey inay wax iga qaadaan xaqiiqatan waxaa weeye shaqadan hayo dadku way garanayaan ilaahay baa ii qadar inaan shaqada ayadaa qabto cid i siisay ma laha ilaahay awooddiisaan ku helay waxaan rabaa inaan dadka tuso walaalayaal ilmahaas qofka ugu weyni waxaa weeye waa 10 jir weeye qofka labaad eeg si fiican u fiiri gabadhaa yartaa ku jirta gabadhaas yarista ah ayaa ku jirta gabadhaa yarta ayaa ku jirta bal ilaahay baan kugu dhaariyey bal eeg cunugtaa yarta ah ayaa ku jirta iyo afar ka mid oo meeshaa taagan middaa weyn kuma jirin 1 2 3 4 5 ayaa hal mar la watay habeenkii waa la joogay walaalayaal aad bay magaalada u qaylisay dadkii oo dhan baa isku yimi waxaa weeye arrinta ayada ah aad baa looga dadaalay khaasatan carruurtayda abtiyaashood ee maaragtay xildhibaanadoodii dowladda ku jiray iyo wasiiradoodii iyo raggii waxgalka ahaa ayaa ilmahaygii raadiyey ilaahayna khayr badan ha ka siiyo sidaa awgeed waxaa dhacday walaalayaal in subax hore la waayo habeenkan ay maqnaadaan 3 cunugna waxaa weeye saldhig baa maaragtay agti maamulka maaragtay helay saldhig baa la geeyey 2 cunugna saldhig baa la geeyey sidaa awgeed walaalayaal 5 carruurta ahaa iyagoo bad qaba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo daayay ma aha cid kale kama soo daynin ilaahayga weyn ee ilmaha iga soo gooyey ayaa ilmahaana soo daayey kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gacanta u soo geliyey maaragtay xukuumadda somalilan oo maaragtay aan mahaddaas khayrka badan uga mahadnaqayo inta ay ilmaha maqnaayeen hooyada ilmaha dhashay oo aanu nahay saaxiib aan sinaba ku kala gooyin bal iska daaya hal mar aan isku qabanin qadiyad aan isku qaban waxaa weeye ayaa maaragtay la yidhi dadkii ilmahaas xasadkee watay ee afduubay ayaa waxay yidhaahdeen shiiqii ayaa maaragtay ilmihii watay oo maaragtay ilmihii ka haystay hooyada waxay tihi ilaahay ka baq oo maaragtay warka hanala soo gelin sheekh cabdixaqna ilmo u dhalay marka haysanayo wax naga dhexayana ma laha ilmahayga ilaahu ii sahal bay tiri saaweed walaalayaal ilaahay baan u diray waxaan ilaahu adaa ilmaha iga soo gooyey maanta gacanaada way ku jiraan adaan kuu shaqeeyaa ilaahayow shaqadan hayo hadday tahay xaq ood raalli ka tahay ilaahu ilmahayga ii soo daa alxamdu lilah ilaahay baa mahaddaa iskale
ilmahaygii maa habeen bay maqnaayeen subaxina way maqnaayeen duhurkii waxaa la soo helay ilmihii oo nabad qaba walaalayaal ilmihii way argagaxsanaayeen gurigii marka la keenay hooyada way la hadashay ilmihii hadal waa laga waayey waxaa weeye waa la duuduubay wal baa la seexiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartii ayayna ku ahaatay sidaa awgeed walaalayaal dagaalkan soo socday ee maarata ka soo bilowda waa sixirole ee markii wax laga qaadi waayo haddana gacanta layla tegay ee 4 mar magaalada boosaaso ee hadda aan joogo hadda gurigayga boosaaso aan joogaa 4 mar baa laygu soo weeraray haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarku ka jibiya xasadka sidaa awgeed hargeyso oo nabada oo aan qof bini aadana lagu dulmin karin ayaa waxaa dhacday inay nimanka ayaga ah ama daalimiintaas kufriga aan dhihi karo waa gaal weeye qof muslima awlaadiisii qaadanaya ee maaragtay raba inuu maaragtay ku badbaado waxaa weeye waa arrin aan soconayn wey waxaan rajaynayaa insha allahu dulmigan daalimiinta ay sameeyeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamana sharciga ilaahay la keeni doono adduunyadana sharciga somalilan ay soo hor istaagi doonaan